ما حبضين كرو مدحوينيال هنا جرو مدحوينيال قبل لا جرو مدحوينيال كلا جرو ود قبل محمد بن باجرو لكن waxaan si gaar ah u adres gareynaya madaxweynaha Jubbaland baan u adres gareynaya madaxweynaha la doortay cali masaar maanta halka loo fadhiyo madaxweynayaal iyo xildhibaano iyo gudoomiyaasha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka aqalka sare dhammaantiin waan salaamayaa mar labaad salaanka bacdi waxaan ka mid ahaa waftigii Puntland madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni hogaaminayay anigoo ka mid ah aqalka sare oo xoogaa waa wax badan dastuurkana ka warhaya lana socday arrimaha Jubbaland si soke oo xoogaalsi ah ula socday waxaan u nimi oo anigu gaar ahaan igu weyn la socodka aan la socday in codkii halkan ka dhacay iyo doorashadii halkan ka dhacday iyo wixii ka horeeyay process oo la soo maray oo xamar joogay markii laga hadlaayay intaan doorashada la gaarin heshiiskii laga galay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan oo halkan dawladda xubnaheedii ugu waaweynaa oo ka mid ahaa la taliyaha hadda sirdoonka madaxda oo ah Fahad oo ka mid ahaa iyo prime ministerku ay la gaareen dabadeedna xamar la isugu yimi waxaan ka mid ahaa dadkii ku dhawaa oo aqalka sare ka socday oo heshiiskaas in la fuliyo intaan doorashada la gaarin si aan khilaafba u imaan aad iyo aad uga shaqeeyay baan ka mid ahaa xamar baan wada joognay markii la ballan qaaday in la fulinayo waan muddo sugnay oo ay fuli weynay senatorayaashii reer Puntland waxaanu go'aansanay oo si cad ugu sheegnay madaxweynaha fariinaan u sii fariinay iyo toos loogu sheegayba inaanu anagu wada tashi u aadayno Puntland waxa meesha ka socdana aan la aqbali karin heshiiskii hadii laga baxay waxa kale laga baxay heshiiskii labaad oo ahaa kii aqalka sare oo soo sameeyay xukuumadda la galay oo guddigii madaxda ka ah hadda dhowr senator ay ka joogaan maanta meesha aniguna gudoomiyahan ka ahaa oo arrimaha markaa taagnaa oo ishuwaha ugu waaweyn oo doorashooyinku ku jiraan oo ku jiro muxuu ahaayee waddanka nabadgelyadiisa oo ku jiro dastuurka dhammaystirkiisa oo ku jiro faragelin la'aanta oo ku jiro sidii waddankan meeshaan looga saari lahaa hore looga wadi lahaa laga gaaray oo dawladda aan isla gaaray fulin la'aanteedii la fulin waayey gardaradana looma dhamma meesha ay ka socon weyday waa madaxda ugu sarreysa dalka waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka bay ka socon weyday waa ka sheegnay shirkadaad baan kaga sheegnay aeroboorka garoowe markaan ka tagnay annagoo senatoriyaal badan ah arrintaas iyo halkaa taalla ayaa doorashadii Jubbaland si dhowaan la soconay waxaan la soconay isku dayga la isku dayayay in la farageliyo oo la kala qaybiyo dadka reer Jubbaland si aan doorasho loo gelin oo loo gacan togaaleeyo oo habraac aan sharci ahayn wasaaradda arrimaha gudaha loo fasaxo inay say rabto u farageliso oo qofka u rabaan kala soo baxaan iyagu taasna waxa weeye wax dastuurka federaalka ka soo horjeedo oo aan la aqbali karin sida oo Xamse oo iga hormaray oo isagu shuruucda dhammaan soo xafiday oo sheegay qodobka 120aad oo dastuurka federaalka wuxuu sheegayaa maamul kasta oo dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka isaga u madax bannaan soo dastuurkiisa cuskanaya iyo wuxuu isagu ku shaqeynayo isku doortay oo hore ugu dhameystay dawladnimadiisu ku dhisan tahay habraaciisa iyo dhismihiisa executive-ka ama fulinta qaybta dawladda oo madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo baarlamaanka oo ka horeeya iyo garsoorkiisa isaga oo madax bannaan intaas oo dhan iyagoo la soo dhaafay anaa ku faragelinayo ku deerinayo ninka raba kala soo baxaya maaha ninka isagu kala soo baxay suu raba Axmed Maxamed Islaan maaha waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ninku raba isagu kala soo bixi kari waayay meesha khilaaf ka jiraana waa halka waxaan aad uga xumahay nimanka saaxiibadeena oo aniga qaarkood ila soo xiriireen oo iyagu ka baaqsaday inay doorashada ka qayb galaan doorashada gabadha yarta oo
la yiraahdo Canab Axmed Daahir ay ka qayb gashay oo 17 cod Axmed Wabiilaha waxbuu urursaday iyadoo ka qaadatay waxay dadkaani ilowsan yihiin qofka markii la doorto cid kasto madax annagana soo martay Sheekh Shariif bay soo martay waxay soo martay muxuu ahaayay waxay soo martay madaxweynihii kale soo martay Xasan Sheekh Maxamuud Saciid waa sugaysaa isaga laftigiisa kulli waa soo martay qofka adigu ay leedahay kalsoonta adigu ku codeynaya hadhow markuu soo baxo meeshuu rabu aadaya maxamed cabdullaahi farmaajo saasuu ku soo baxay gablihii aad u jeclaayo maanta siigada nagu rogay oo codka siinay waataa mid ka mid ah maqlaysan oo lahayd codkayga baan siiyay ka maqlaystay hadda meeshay marayso hadaafis marka waxa meesha yaala waxa weeye war adiga maxaa madaxweyne lagu doortay adiga waxa lagu doortay dalka ilaa isku haysa dastuurka ilaa ilaalisid kitaabkii aad martay ilaahay xaqiisa iyo bini aadamka hortooda aad ka martay qodobadaha waa laga soo daayaa maalinta doorashada BBC-da iyo Voice America waa laga doodaa inaad u hogaansatid haddii aadan ka bixi karin oo aadan samayn karin dadka inaad dhinac ka istaagtid high school line dadka laakiin ummaddu maanta waa ka bisishahay maanta waxay ku dhantahay meeshan la yiraahdo Kismaayo odayaashii hore oo ka soo qayb qaatay dhismaha nidaamka federaalka iyo kuwii ka sii horeeyay anigu aan ka mid ahay oo ilaa Djibouti soo waday oo geedaba la soo harsaday oo Nairobi la tagay iyo Eldoret oo halkaan la yimi oo Puntland wax ka dhisay oo tanaba gacan ku lahaa intuu waa joogaan waxa maanta furan waxa weeye dalka kuwa nidaamkii loo dejiyay oo dastuuriga ahaa adiga ilaaliyaha dastuurka ah ku ilaali waxaanu u nimi annagoo ku qanacsan doorashada ka dhacday halakan inay tahay doorasho sax ah oo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ku guuleystay oo aan ugu hambalyeynayno ugana tacsiyeynayno kana xunnahay kalena safannahay faragelinta nooc walba leh mid maaliyadeed mid qaybineed mujtamaci reer Jubbaland oo lagu guuleysan mid shisheeye u kaashasho la isku dayay mid wax walba oo suuragal ah in la sameeyo in la inkiro doorasho kama dhicin in lagu inkiro intaas annagoo ka xun baan u nimi waana ku hambalyeynaa waana inay hambalyeynaa dadka reer Jubbaland waxaana inay kula dardaarmayaa ilaaliya midnimadiina way dhici kadhaa ama waa inay ku dhex jidhaaba in layna ka dhac kalluumaysto kalluumaysigaas hadeer maamuladii xataa lagu guuleystay ku jidhaa Puntland mararka qaarkood waxaan ka maqlaa hadalla aan munaasib ahayn oo mujtamaca qaybihiisa wax garadka aan ahayn oo hoose iyo waxba meelaha loo tuurtuuray qaylqaylaya waa ka maqlaa laakiin hal baa inuu sheegaya nidaamkan federaalka ah waa tagay lagama noqon karo dibna looma celin karo cidii isku dayana iyada ku gubanaysa afka waa laga yiraahdaa nidaamka federaalka wadnaa waceen laakiin ficilka socdaa waa burburinna dadkaanu waa soo dhaafay horu u burburay nidaamkii uu ka burburayna dib ugu noqon maayo waxa laga gudoomiyay 1991 aadan Cabdulla Cusmaan iyo Sheekh Maxamed Sheekh Muxtaar Maxamed iyo Cabdisaaq Xaaji Xuseen iyo Maxamed Ibrahim Cigaal oo jeerka ahaa ayaa iyagoo wakiiladii warloorayaasha maalintaas iyagu ay wada saxiixeen inaan Soomaaliya dib ugu noqon doonin nidaamkii kaligitaliska ahaa ama unitariga ah oo weligii jiray nidaamka federaalka aan qaadanay faa'iidooyinka dalka uu leeyahay waxa weeye ani waqtiga iska dheeraystaa waqtiga faa'iidooyinka uu leeyahay dadka aan garanayn baan wax yar uga sheegaya nidaamka federaalka ah sidiisaba waa wax qaybsi xukunka dawladda wuxuuna ka bilaabmaa in awood ilaalinta dalka iyo isku haynta ah la siiyo dawladda dhexe oo nidaamka nimada Soomaaliya oo dalkana lagu hayo wixii ka soo hara oo dhan ay leeyihiin maamuladu ay leeyihiin geed jiridiisu haday weynayn oo dhulka aad ugu aasnayn waa dhaca markii dabayluhu qabsadaa maamulka federaalka ah waa maamul jirid weyn oo dhulka ku aasan dawladaha adduunkana boqolkiiba 40 oo dawladaha ugu horumarsan ay ka mid yihiin ayaa qaatay Mareykanka ugu horeeya 1776 buu qaatay waxa ka mid ah dawladaha kale waaweyn oo qaatay Ruushka Jarmalka sida ka warhaysaan waxa qaatay Hindiya ودولة الإسلام كماليزيا قاتي أفريقيا وكور هيسان أدير كينيا
waa evolutionka ugu jidho hadda federationkii uu dhamaystiran yahay wax yar ka dhiman yihiin magacaabadii states inay ku magacaabaan kaliya containing intay cantonate intay hadda sheegayeen tii rasmiga ahayd stateska iyaguna u socda marka nidaamkaas waxa weeye dadka in dawladda loo dhaweeyo labadaas xeer oo dawladeed dalka lagu maamulo dastuurkana ay mas'uul ka tahay dawladda dhexe iyo wixii wax lagu qaybsaday iyo wixii muxuu ahaayay markaas la isku ogaay sidii ahayn loo fuliyo haddii maanta dalka wax ka xumaadaan mas'uul waxa ka ah madaxda u sareysa dalka lama wadaago waxaan soo jeedinayaa oo ku celcelinayaa hal la heshiiyo dib heshiisiin hal la sameeyo adiga ha ka timaado codsiga adiga ha ka yimaado hal la heshiiyo waa ka sugayna intaan meesha ka tigin haday ka imaan weeyo intii kale heshiin ka heshiinaysa haddii inta kale heshiiso adigu aad heshiis ku jirin ayaa lagu heshiinaya